video call uu soo wali soo oonay si fiican face to face isku aragnay kulligan ani asad Abdullah asna ma aragtay hadda hurdaay waa sheekaysanay kaliya qalad ma ka galno dhay Soomaalidan oo qalad galay dad badan oo inkaar maskiin marka hada ku duceeyna hadana dib ma lahan marba inkaari habar dabina meelaha ay soo gaarto naftaada de go'ayso ha ku go'do qaab qurux badan yani gifka uu galay uu qirtay laakiin hadda waxa ka xumaaday inuu kood hore waxaas uu sameeyay jiro hadda aad ay noqlay dad asxaabtaada inay ku jiraan taqaanid please anaga ma aha asidartiisa ma ilaahay dartiis waxaas oo heshid ku jooji بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة لماتين وسلامتين مركز تقدمك كجوكتين أرمين ما مدرش كصورته فرحة أنا ودنبيس قدر إنه درتها فرحة أوكي يعني كسره مقال كان دق واي يعني سي emergency ku imaaday in ay idin wadaagnan waa jecelnahay maadaama ay jiraan dad badan oo loo soo istaagay shalayna garab taagnaa oo noo hiiliyay waxaan rabnaa in idin wadaagno oo idin sheegno maadaama familkeena tihiin ayna ku jiraan dad badan oo dhiig leh oo noo damqaday na garab istaagay noo hiiliyay wiilkii asad channelkiisa qaatay waa soo ogaanay wuuna la soo xiriiray channelku waa la soo celiyay maanta uu la soo hadlay wuuna soo diray isagoo waliba noo sheegay inuu seexan waayay hal haween dhan inuu seexan waayay yani uu waliba cabsi badan uu dareemayay wiilku wuxuu naga codsaday in ma aragtay aan shaacanin aan ku sheegin balan oo anaga aan dhaxmartay ahayd anagana waa yani waa ku ixtiraamna balantiisa inkastoo maaragtay uu gaf badan uu sameeyay xad gudub weyn uu sameeyay hadana qofka bini'aadanka anaga ka soo ilaahigi wax uuntay adoonkiisa afiyo so anaga bini'aadan marka maxaa sheegana waxa sheegan ma jirto marka wuxuu dalbaday cafis inaan cafino sidoo kale wuxuu inoo sheegay dad badan inuu ku tijaabiyay oo kamid ahaa dadka asad uu ku tijaabinayay oo asad ay u suurta gashay inuu cudaankiisaas uu ku helo isaga markuu yes taabtay asad telefoonka marka saas daraadeed wuxuu kaloo noo sheegay in videoyaalka ku jiray dhan uu delete gareeyay wuxuu kooda ka tuuray telefoonada iyo emailka gudaha ku sii jiray wixii dhan uu tuuray aduuna soo celiyay passwordka marka anaga email cusub aan dhignaay waa habaysanay telefoona aan galnay laakiin videoyaalka ku jiray meesha hor u yaalay oo asad duubtay qaarkood anaga aan ku jirnay qaar family ahaan aan u jirnay waxyaabo badan oo asad uu يعني noloshiisa ku saabsanaa meesha ku jira dhan wuu delete gareeyay marka wuxuu naga dalbaday dhibka uu geystay inuu maaragtay aan ka cafino sidoo kale wuxuu noo sheegay waxa ka ahaan waay uu dhahay yani ka joog waa damiirkeyga diiday inaan waxaan sii haysto dadkii oo dhan channel walba arko YouTube wuxuu ku jiraa inkaar soo habaar weesaan uu sameeyo kan uu yeelo waxyaabo noocaas marka wixii alxumaati uu dhahay maanta anigoo wajigeyga hoos geenayo aad la soo hadlay marka asaday maxaa dhaysan horta waxa waaye alxamdulillah waaye channelka waa noo soo noqday walaalkeena nala soo xiriiray kulay waxaan halkaan ugu dirayaa waa ku mahadsan tahay inkastoo yani videoyaasha ay tirtiray waxyaabo xasuus u jireen laakiin waxaas yani dib ma lahan صح horba ugu sabray haddana wuxuu iga codsaday inaan cafiyo ani hor waa u cafiyay ya anaa ku dhaabis ka cafiyay wuxuu kale ii sheegay yani qof aad u qalbi jilcan tahay marka waxyaabaha badana aan kugu soo laabtay waxay tahay cafistaas aad cafisay iyo bulshooyin Soomaaliya dhan ku istaagtay oo dhamaanteed ana fari u soo fiiqaan marka fariin waa wada oo dhahay Soomaalida weyn u sheega inay igan cafiyaan kaliya qalad ma ka galno dhay Soomaaliya dhan oo qalad galay dad badan oo inkaar maskiin marka hada ku duceeyna hadana dib ma lahan channelkeena noo soo laabtay farxad waaye marka فرحات ويتا لكن ستيل حسوستي كجرت ماشي لكن متحراعنا يا وحي دعي وين دعوين يا متحراعنا الحمد لله فيديو الكاسكاد way ku jiraan computer way ku jiraan laakiin dhibaatada ay ahayd waxa waay meesha wuxuu ku jiray deed ahaan uu diray waxyaabo badan uu sameynaya jirtay waqti badan ay galay ya dhibana waxa saxba warkin walaalkeena horta qofkan anaga wanaga codsaday in aanan maaragtay shaacna isagana kalsooni isku qabo darteed video call uu soo wali soo oonay si fiican face to face isku aragnay kulligan ani asad Abdullah asna maaragtay hadda hurdaay waa sheekaysanay runtii si waa ku farxaysanay waa ku murugay yani waxaan ku farxay yani gifka uu galay uu qirtay laakiin hadda waxa ka xumaaday inuu kood hore waxaas uu sameeyay waxaas amal uu ku saxajaamo wax fiican ma ahan oo dadka maaragtay lagu tijaabiyeen ma ahan anigaan hadda idin la hadlaayo اسبوع way ka badan tahay maalin walba lagu soo dayaa waa soo tijaabiya daqiiqada kor ugu dambeysay oo yani la soo tijaabinayo easy lagu soo tijaabin karaa dad qaar waxay dhaayaan qofka YouTube kaaga emailkiisa haduu heesta leh maaragtay u forget password soo sameyn karaa taas ma jirto waxa jirto username-ka ama ururka kor YouTube kaaga channel kaaga magaciisa waa lagu raadin karaa emailka kugu sameysan waa lagu raadin karaa lagu heli karaa kadib forget password la soo dhihi karaa marka forget password la soo dhawo yani waxa jirto qofka dul cala lambarkaaga hayo waxa la dhihi karaa kooda ku diri doona ama lambarkaaga ama telefoonkaaga ama yeesa taabto waxa noocaas
qofka hadduu lambarkaaga ada hayo waa u fududahay intuu geliyo uu dhaha lambarkaan ada maama hubtaha intuu geliyo aa la dhihi karaa telefonkaaga waxaa imaanaa notification yes taabo emailka lagaa soo galaya camal marka dhibka asad oo sidiisa ugu dhacay saas waa hacking gal oo lagu sameeyo oo saa weyn ma ahaanin marka waa ugu taxadiraa waan ugu digaa dadka iska ilaaliya telefoonadiina markii waxyaabo noocaas camal ay soo dhacaan ha ku fududaan ana yes taabataan kood hore iska akhriya anad waa kan fiir screenshot ka inta yaalo waa liisoo tijaabiyey mar badan aa liisoo tijaabiyey kana ugu dambeeyay hadda arkaysaan haddaa yes aad taabto waa ahaaday inkastoo intii cusubtaa wax ku gaarsiin kartaa wax yani inaad soo ceshan kartid haddii markaas ilbiriqsa farfooda computerka daarka furud agdab tagto waa samayn kartaa laakiin waxaa laga yaabaa telefonkaaga inuu qof markaas u isticmaalayo ama qof video intuu ku dhawo ka hadlaa oo yes isaga uu ku taabto yani qaabo badanaa jirto oo si ay ku dhici karaan iyaga marka hadda waxaan halkan dardaaran asiinanaa muuqaalkan inaa maanta aan soo bandhigno isaga naga codsaday wuxuu dhahay yani inaa wixii idin soo celiya dadka labadaaga ma rabi inkaari habaar dab ina meelaha iga soo gaarto cafisna iyo weydiista u dhahay yeah marka anaga ahaan waa cafinay wax uma haysano waa qof qaldoomay oo gef galay marka dhib malaba iska cafinay laakiin waxaa ugu digaynaa inuu markale waxyaabaas camal sameynin dadka isaga lamidka ahna ay ka digtoonaadaan idinkiina cafiya xaggeen cafiw ka yahay idinkana cafiya iska cafiya dad badan waxaa jirta oo laab kiciyey oo isdhahay asad oo maaragtay oo had maanta wheelchair ku socdo saan u galay muxuu saan u yeelay waxyaaba noocaase dad badan oo aad u badan oo ka dabaqdanaa jirta arrintaas dad badan ay saamaysay marka dhibaato malan hadda yani haddana qofka uu cafis dalbanayo anaga waa bad cafinay idinkan waxaa rajayna insha allah inaa cafisaan sidoo kale waxaan rabaa inaa halkaan aan ka codsado codsi oo dadka ka codsanayo yaa wax ka codsanaya waxaan ka codsanaya dadka badan ee maaragtay asad u hiiliyey ee garab istaagay dadka badankiisa waxaa jirtay muuqaalada asad uu soo boosgareeyey muuqaalkeyga inaan soo boosgareeyey inay qeybo ka qaateen yani oo maaragtay jadwaladooda ay kusii dhiirigeliyeen dadka waxaan sameynaya yani inay bogaadi badan ka sameeyeen dadkaasa waxaa ka codsanaa muuqaalada maaragtay uu asad leeyahay ama warbixinta ku saabsan waxyaabaas looga hadlaayo inaad channeladiina aad ka saartaan oo private aad ka dhigtaan sababta asaas u dhahan wax kale macaan waxaa dhici karto dad aan muuqaaladan weli arkin inay arkaan oo argagax ay ku noqoto asada welwelaan ama maskiinkaas haddana inkaar cusub ay u furaan soo taasna meel qurux badna taasoo codsi waaye yani xaq uma leeyihi inaan maaragtay channeladiin ilaa ilaa bixisaan samee kan adho laakiin codsi ay tahay marka insha allah codsigeyga waa rajayna inaad tixgelin doontaan aad iyo aadaan ugu mahadsantihiin maxaa kaloo gudaray asad wallahi wax kale aan dhahaa ma aqaano koley qof bini aadanka khalad uu galaa khaladkan qofkaas waa kasoo noqday marka insha allah waxaa kaloo asigana uu noo sheegay inaan la shaacinin magaciisa ama faahfaahin dheeraad ah marka kolley videogan saasaa idinku wadaageyne marka xaalad walbo iyo talaabo walbo anaga nagu soo kordho ama aan qaadan doono idinkaan iltashanaa idinkaan idin sheeganaa waana garab taagantihiin marka hadda arrinkaasaa nagu soo kordhay waana farxad wax kale hadda dhibaatada ma jiro channelka waa soo noqday sidiis waaye laakiin videoyaashu la tirtiray wax kale ma jiro marka okay marka arrintan channelkan waa ka tashan doonaa insha allah isaga hadda waxaan samayn doonaa in maaragtay channelkaas hadda raadisaan waa arki kartaan yani shalay wuxuu ahaa idaraad markii la raadiyo akoonka dhan hawada ma ku jirno ahaa hawada dhan kuma jirin soo hadda channel ahaan uu shaqeynayo laakiin wax video ku jiro ma jirto marka insha allah intaas rabnay inaan idin la wadaagno muuqaalkan aan kusii dheeraana ma rabni codsiyaga mar kale waxaa u sheegaa dadka youtuberska kale ah ee asxaabteena ee maaragta noo hiiliyey siday shal noogu hiiliyeen haddan maanta inay codsiyaal u tixgeliyaan oo muuqaalada maaragta ku saabsan cubaanka asad la xaday ay iska saaraan dadka cusub ka argagaxay u arkaan iyaga dib u maanayo saas darteeda idinkaga codsanaynaa inaad yani iska tirtirtaan marka waa mahadsantihiin intaan muuqaalkan gabagabeyn waxaa rabaa insha allah inaan kaloo sii raaciyo waxaa jirto page Facebook oo ku saabsan oo yani ku magacaaban asad magaciisa ku qornaa jirto oo runtii maasha allah dad badan ay ku xiran yihiin oo u maleeya inuu asad yahay arrintan marwin hadda mar kale ka hadlo laakiin way nagu soo noqnoqotay waxaa jirto dad badan oo asad soo bacay oo dhahayaan yani lacaga kuu soo diray ama waxaa kuu soo diray waxyaabo noocaas horta qofka axsaan uu sameeyo wax fiican uu sameeyo duco ku hayaa sabir asad uu leeyahay soo boos gareena wuxuu ku soo qoraa waxyaabo sida aan camalay in mar dhow lugaheen ku istaagi doonaa iyo soo ducay waxyaabo noocaas waa u baahanahay ducadaas waa loo baahan yahay laakiin si qurux badan oo nidaamsan haddii daacad ay ka tahay masaajidka u tag gacmaha kor u taag u duceey ama sadaq u baxso taas anaga naga khayr badan anagana abaal iyo axsaan aan kaaga hayn karnaa laakiin inaa magaciisa isticmaashid oo sabridiisa aad ku qaraabatid oo meelaha soo dhigtid aad dhahdid inaa asad inuu yahay camal iskama tashid hortaasna dhibaatada ay leedahay idinkan waa raadin kartaan haddaa Facebook aad tagtaan asad hajo aad ku qortaan yani dhowr page aa soo baxay kan ugu caansan ugu daran yani meesha waa ka arki kartaan kale taasna waxaa leeyahay dadka waxyaabaha sameeyo haddii maaragtay adiga laga yaabo dadka daawanaya mid kamid ah inuu ku jiro haddii aad ahayn wax leeyahay dad asxaabtaada inay ku jiraan aad taqaanid please and please anaga maaha asad dartiisan maaha ilaahay dartiis waxaasa u heshid ku jooji
waxaan rajaynaa insha allah inaad taa idana ka taxadiri doontaan because adduunkan hadda meel isku soo jooga lama oga dad shal waxaa iska arkaysa iska khusaysa iska farxaayo hadda naftooda meel ay ku dhamaan karto marka naftaada hadday go-ayso ha ku go-do qaab qurux badan si kasta aad hogmaan si dabasho waqti dadka dhibaatada waxaan rajaynaa qarax mid bisho farxad dareerna mar dheer bas badan waxaynu balanaa muuqaalka xiga insha allah waqtigaaga sug oo tagaa okay waqtigaaga ka faa'iideyso ama sintiin